Ethiopia dagaalada ka socda ayaa madaxa la sii galaya sanadkii labaad ee dagaalka waxaana dhammaaday sanad guluf military ah oo u dhexeeya TPLF iyo ciidanka Ethiopia kaasoo bilihii ugu dambeeyay ku fidaya gobolada Amxaarada iyo Cafarta oo Tigray ay duulaan ku soo qaadeen wixii ka dambeeyay markii ciidanka Ethiopia ay ka soo baxeen gudaha magaalada Maqale iyo deegaanka Tigrayga oo ay 30 maalmood ku qabsadeen bishii November ee sanadkii hore oo ahayd bilowga dagaalka. hadda xaaladaha ayaa isbedelaya. Ethiopia dawlad ahaan cadaadis weyn oo caalami ah ayaa ka haysta dhinaca reer galbeedka oo ka doonaya joojinta dagaalka iyo inay timaado miiska wadaxaajoodyada oo wada hadal la gasho TPLF. Mareykanka iyo wadamada reer Yurub qaarkood ayaa xoogga saaraya sida ay taageero u siin lahaayeen kooxda TPLF. sidaasi waxaa ku eedeysa dawladda federaalka Ethiopia. dagaalada ayaa sii kordhaya. duqeymaha ay ciidanka cirka Ethiopia ka wadaan gudaha Tigray ayayna sii laba lixaasanaya. hayeeshee gulufka xagga lugta ee militariga oo TPLF bilowgii ku sheegeen inay toddobaadyo ku qabsan doonaan Addis Ababa ayaan weli gaarin hadafkaasi. Abiy Ahmed oo marar badan sheegay inuu soo afjarayo kooxdan ma muuqato awood dheeraad ah oo ku jabin karo waqtigan. labada dhinacba waa isku agdhaceen sida hadda muuqata. waliba TPLF weli waxa ay leedahay awood ay ku dagaalgelin karto maleeshiyaadkeeda. shalay waa hadallo saacado qaatay ayaa ugu soo dhammaaday magaalada Bahardar ee caasimadda Amxaarada. madaxda ugu sarreysa dalka Ethiopia oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada qowmiyadaha kale. shirkaasi bayaan ka soo baxay waxaa lagu sheegay in habdhiska ciidanka xoogga Ethiopia ay tahay wax laga bedelo. qowmiyadda Amxaarada oo wajahaysa duulaanka ugu culus ee ka imaanaya Tigray ayaa u aragta tallaabadaasi inay tahay mid lagu muujinayo tabasho muddo dheer ay qabtay oo ah in ciidanka Ethiopia aysan gudahooda daacadnimo ka jirin. mararka qaarkood isbarbaryaca ciidanka Ethiopia iyo kuwa qowmiyadda Amxaarada ayaa la rumaysan yahay inay fursado military u abuureen TPLF. kooxdan TPLF waxa ay doonaysaa inay qabsato deegaanada Amxaarada kadibna ay si fudud ugu gudubto Addis Ababa, balse taasi ma sahlana marka laga hadlayo dhulal badan oo ay labada dhinac ku hardamayaan. haddana taageerada ay kooxdan weli heli karto ayaa sii kordhin karta xaaladda, waana jiha la rumaysan yahay inay toddobaadyo kadib dhinacyadu ku kala guulaysan doonaan. guud ahaan marka laga hadlayo gobolka Tigray, qaybo ka mid ah ciidanka Ethiopia ayaa weli ku sugan xadka uu la wadaaga Suudaan iyo dhinaca Cafarta weli dagaalada ayaa ka socda. Tigrayguna awood xoog lama saarayaan goobahaasi, sababtuna waa inay joogaan ciidanka ugu badan ee Ethiopia. dadka saadaaliya arrimaha Ethiopia ayaa leh suuragal marnaba ma noqon doonto inay TPLF dib u xukunto Addis Ababa oo ay u talisay Ethiopia. taas waxa ay ka dhaweynayaan in Ethiopia gasho dagaalo sokeeyo ay burburto ayna kala noqoto qowmiyada si madax bannaan u kala noolaada haddiiba ay kala badbaadaan. bishan sii idlaanaysa ee Oktoobar ayaa la filayay in dhinacyada Addis Ababa iyo TPLF ay joojiyaan dagaalku ay qaataan xabad joojin bilaa shuruuda, balse dagaalka ayayba sii kordhiyeen labada dhinacba. waxaa hadda la sugayaa dhawaaq ka yimaada reer galbeedka oo aan dhexdhexaad noqon doonin, waana inay xoogga saaraan si cad halka ay dantoodu ku jirto waqtigan. warbaahinta gudaha ayaa tabinaysa kala aragti duwanaanshaha labada dhinac ka sokow, haddana safafka magaca guud ka midaysan ee dhinacyada inay haddana jiraan kala afkaar si weyn u xoogaysanaysa oo u dhaxaysa saaxiibada wada taagan ee dagaalka ku wada jira, sida laga dheehan karo hogaaminta Amxaarada iyo tan Tigray oo labaduba hadaladooda lagu arkaya baraha bulshada. Abiy Ahmed guuldarro siyaasadeed iyo mid military ayay ku noqonaysa dagaalkan madaxa la sii galaya sanadkii labaad, iyadoo weliba Tigray ay haystaan dhul aysan haysan November sanadkii hore una abaabulan yihiin si qowmiyada waqtigan. waxaa la isweydiinayaa dagaalka meeqa bilood oo dambe ayuu sii qaadan doonaa. Ethiopia oo mar ahayd mid ka mid ah dalalka ugu maamulka adag ee geeskuna ma ka badbaadi doontaa dagaallo sokeeye oo gebi ahaanba burburiya. warbixinteenna soo wajahan waxaynu ku eegaynaa haddii allaha Waldan raalli ka ahaado muhiimadda magaalada Disay ee ay dhinacyadu isku hayaan hadda muhiimad noocee ah ayay leedahay. shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbarbaarka bajaajyada, dawooyinka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.